soomaalida wax baranaysa waxaan usoo jeedinahayaa in aysan waxba baran oo ay iska daayaan iskuullada. sababtoy tahay baa waxay tahay dadka waa sidaan dadku waa sidaan weye dadku sidaan weye ama xariiqid ka fiican aan xariiqo waa sidaan dadku waa sidaas dadku waa sidaas aan tirtiro xariiqinta kore maadaama aysan tahay mid iga khaldantay. ta hore waa tirtir macnaha ma fiicna dadku waxa weeyaan waa sidaan waxa weeyaan dadka waxaa lagu cabirahayaa caqligooda saana loo cabiraa. dadka way ka hooseeyaan kuwaana u hooseeya ugu caqli xun dadka. hadhow dadku waxay imaanayaan meeshaan normal bay imaanayaan. dadka normalka intaa weeye. dadka normalka markay intaa yihiin dadka normalka baa sii kala baxaya oo waxaa imaanaya intii caqliga badnayd baa imaanaysa. inta caqliga badan baa imaanaysa way soo yaraanayaan. waxaa laga wadaa halkan intaana normal ah dadka intaana normal ah inta udhaxaysa intaas baa normal ah. intaasa udhaxaysa dadka oo normalka ah. wixii intaan ka hooseeya dhinacan ka xiga normal ma aha. wixii xagga ka xigana normal ma aha oo dadkay ka caqli badan yihiin. kuwaan dadka badankooday ka caqli badan yihiin. dadka intaa xagga jira way yar yihiin. kuwaana way ka caqli yar yihiin dadka wayna yar yihiin. dadka intiisa badan waa dhexdhexaadkaas intaa dhexe weeye. dadka wuxuu intaa xagga ka xiga caqli male waa ku yaryahay caqliga. suu caqligu u yaraanayo dadka nacasyada ah baa meelahani kasoo bilaabanaysa u socdaan. macnaheeda waxa weeyaan intaanoo dhan way wada yaqaanaan waxaan. intaan way wada yaqaanaan dadkaanoo dhan way wada yaqaanaan intaan. waxaa haraya intaana ka haraya dadka. intaani way wada maaragtay way wada yaqaanaan wax xagga ka xiga. marka dadkii caadiga halkaanay ku harayaan meelahanay ku harayaan. wixii kasii baxsan oo saa-id kasii ah oo caqligoodu uu kasii badan yahay yaa xagga aadaya. marka qof kastoo halkan jooga wuu yaqaanaa qofka kale oo xagga ka xiga waxa uu yaqaano laakiin kani ma yaqaano wax xagga ka xiga. marka sababta keenaysa soomaalidu in markaan leeyahay la iska daayo waxa weeyaan macnaheeda kan caqliga badan oo halkan jooga dadkani ma fahmayaan wuxuu ka hadlayo. waxaan ma uu fahmayo. dadkani ma fahmayaan. kan doqonka ma fahmayo. dadka dhinaca ka xiga oo normalka ah ma fahmayo. marka waxaa dhib ku qaba dadka bulshada. waxaa dhib ku qaba waxaa bulshadan faraha badan waxaa dhib ku qaba kan caqliga badan oo aan la fahmayn. lama fahmayo isaga. dadku ma fahmayaan. waxay u arkaan si kale u arkaan. dadkani ma fahmayaan. dhibba ku qabaa lama fahmayo. wax kasta uu sameeyo dadku ma fahmayaan. si kasta uu saxan yahay dadku waxay u arkaan inuu khaldan yahay because ayaga caqligoodan gaarsiisnayn ninkani inuu la fahmo. kan caqliga yarna maxaa la dadku dhib ku qabaa oo ma fahmayo. dadka ma fahmayo. marka
haddii soomaalidii ay tahay meelahan haddii ay soomaali intii tahay iyo intaanba ay u badan tahayba hadday u badan tahayba ninka waxbartay oo caqliga lihi wuxuu dhib ku qabayaa dhibba usoo kordhay oo si kasta uu caqli badan yahay si kasta uu maskax badan yahay lama fahmayo marka dadkani dhib bay ku qabaan marka qofka soomaaliga hadduu wax barto oo dadka intiisi kaloo dhan aysan caqli lahayn waxna baran dhibba ku qabaa lamana fahmayo waxbarashadii maxaa usoo kordhisay marka dhibba usoo kordhisay marka waxaa fiican intii dhibka usoo kordhi lahaa oo uu dhib bulshada kala kulmi lahaa inuu ayaga la mid noqdo oo iska noqdo qofkaas doqonkaasu dadkiisa isaga dhex jiro marka waxaan dadka ku baraarujinayaa soomaaliyeed ama shakhsiyaadka soomaaliyeed ee waxbarta waxaan ku baraarujinayaa inay waxbarashada iska daayaan oo ay la mid noqdaan dadka intiisa caqliga xun oo waxbarashada yar aan waxba kala garanayn haddii cilmi kuu kordho wax aan ahayn wareer iyo dhib iyo shido waxaan ahayn kuma kordhin ha kororsan waxaa la yidhi meesha laga wada ilaa ayaa meel haddii aad tagtay laga ilaa yahay ishaa layska tuuraa baa la yidhi saa dadka aadan uga dhex bixin oo aadan dadka ula socoti marka dadka waxbaranaya ee soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa waxbarashada in ay ka tagaan oo dadkooda ay la mid noqdaan oo ay waxbarashada iska daayaan haddii kale qofkaas waxa weeyaan wuxuu noqonayaa tuka cambaar leh oo aan dadku fahmayn oo bulshada dhib ku qaba oo aan bulshada soo dhexgeli karin buu noqonayaa marka qofkii wax baranayo bulshada ha iska dhex saarin bulshadu waxay u badan tahay jaahiliin dadaan waxba garanayn dada caqli lahayn bay bulshada u badan tahay bulshada ha ka dhex bixin waxba ha baranin maxaa la dhahaa bulshada haddii aad rabtid inaad ku dhex noolaatid oo ku dhex jirtid waa in aad waxbarashada iska daysi waxbarashada iska daaya maxaa la dhahaa dib ha kororsanina faa'iido ma keenaysaan haddii intaan kale haddii aysan idinla fahmin faa'iido ma keenaysaan waxa weeyaan waxaa layidhi dad kaa badan iyo biyo kaa badanba waa ku qaadaan baa layidhi marka dhib ha kororsanin iska daa waxa cilmiga iyo waxa aad raadinaysa iska daa waxa weeyaan wax magaradnimada iyo doqonnimada baa danta kuugu jidhaa marka maxaa la dhahaa dadkaaga ka mid noqo dadkaaga ha ka dhex bixin dadkaaga shidada iyo cudurkay qabaan baad la qabaysaa dadkaa ka mid noqonaysaa waxaa la yidhi maxaa la dhahaa cudur lagula qabo maxaa la dhahaa cillad male iyo wax saas oo kale ahayd baa umalaynayaa cillad aad dadka ula siman tahay wax weyn ma aha jaahilnimo aad dadka ula siman tahay iyo dibdhac iyo horumar la-aan aad dadka ula siman tahay wax weyn maaha bulshada ha ka dhex bixin ha isku dirin ummadaada ka mid noqo waxbarashada dadka maxaa la waxbaranaya ilaawa iska daaya waxbarashada ka tanaasula dadkiina saa ugu dhex jirtaan oo aad bulshada kaga mid noqotaan oo aad wax ula qaybsataan kolley waxaa lala qaybsanayana maxay noqonaysaa khasaaro iyo dib u dhac baa lala qaybsanayaa intaas baan ku baraarujinayaa iskoolada ha la iska daayo hana la iska daayo waxbarashada iyo dadka dadaalhaya oo horumarka saan dadka looga dhex bixin billahi tawfiiq